أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada akhyaaray waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii baradalkaaga hooyo. barnaamijka aalaaba waxaa idinla socodsiiya anigoo ah Khaalid Cabdiraxmaan Xasan Qisbi ah. fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saaro oo fura gambaleelka siino shargeliya si asxaabtaada ay u gaaraan muuqaalada halkaan soo gelino. waad ku mahadsantihiin la socodka iyo la jaanqaadka muuqaaladanaga. waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka baradalkaaga hooyo. ciwaanka aan uga hadli doono maantay hadduu eebaweyne raalli ka noqdo waxa uu noqon doonaa Soomaaliya. waxaa wada ognahay inay tahay dal dhaca qaaradda Afrika, gaar ahaan bariga. Soomaaliya waxa ay leedahay calan ku dhex taalo xidig ka kooban 5 geesood. 5taasi geesood waxay u taagan tahay shantii Soomaaliyeed. haddaba shantii Soomaaliyeed xagee ka yimaadeen, xageese ku dambeeyeen? barnaamijka intuu hawada ka baxaya ayaad ku maqli doontaan insha Allah. waxaad kaloo barnaamijka ku maqli doontaan intuu hawada ka baxayo xilligii ay Soomaaliya xorriyadda qaadatay, dhirirka xeebta Soomaaliya wadamada deriska la ah, iyo weliba waxaad barnaamijka ku maqli doontaan hadduu eebaweyne raalli ka noqdo shantii Soomaaliyeed maxaa ka maqan hadda, maxayse haysataa, maxaase ka go-ay. waxaad kaloo barnaamijka ku maqli doontaan insha Allah ururkii SYL, dadkii uu sasareeyay iyo magacyadii 13 dhalinyaro ee u istaagtay goortii la aasaasay ururkii SYL, goortii Soomaaliya iyo gobolada waqooyi ee Somaliland midoobeen, iyo goortii dalka Djibouti uu xorriyadda qaatay. intaa ayaa barnaamijka ku dhageysan doontaan hadduu eebaweyne raalli ka noqdo. mar kale ku soo dhawaada barnaamijka baradalkaaga hooyo. Soomaaliya, dal lagu magacaabi jiray Jamhuuriyadda Soomaaliya, wuxuu ku beegan yahay juqraafi ahaan qorax ka soo bax geeska Afrika. bari waxaa ka xiga badweynta Hindiya, galbeedna waxaa ka xiga dalka Itoobiya, koonfur galbeed waxaa ka xiga dalka Kenya, waqooyina waxaa ka xiga dalka Djibouti. dalku waxa uu leeyahay xeeb dheer taasoo dhirirkeedu lagu qiyaaso 3333 kilomitir. Afrikana, Soomaaliya ayaa ugu xeeb dheer marka laga reebo Koonfur Afrika. caasimadda dalka Soomaaliya waa Muqdisho, tan labaad waa Hargeysa, tan saddexaadna waa Kismaayo, halka tan afraad ay noqonayso Baydhabo, tan shanaadna ay noqonayso Burco. xilligii xorriyadda Soomaaliya, shirweynihii gumaystayaasha Afrika wuxuu ka dhacay dalka Jarmalka, gaar ahaan caasimadda Berlin. shirkaasi waxa uu dhacay sanadii 1884. dalka Soomaaliya waxaa loo kala qaybiyay 5 qaybood oo gumaystihii kala qaatay, waxa uuna u kala qaatay sida tan ee soo socota. gobolada waqooyi waxaa maamulayay dalka Ingiriiska oo xilligaasi gumaysanayay. gobolada koonfureed waxaa maamulayay gumaystihii Talyaaniga. xeebta Soomaaliyeed ee Djibouti waxaa haystay dalka Faransiiska. NFD waxaa lagu daray dalka Kenya. ugu dambeyn, gobolada Soomaali galbeed oo gacanta loo geliyay dowladda Itoobiya. haddaba halganka dheer kadib, Soomaaliya waxa ay xorriyad qaadatay 26 Juun sanadii 1960. gobolada waqooyi ee Ingiriisku gumaysan jiray ayaa waqtigaasi xorriyadda qaatay, halka 4 maalin kadib 1 Luulyo sanadii 1960 waxaa kaloo xorriyadda qaatay gobolada koonfureed ee Talyaanigu gumaysan jiray. waxaana midoobay goboladii waqooyi ee gumaysan jiray Ingiriiska iyo goboladii koonfureed ee gumaysan jiray Talyaaniga. halkaasina waxaa ka dhacday xorriyad buuxda ay qaateen 2 gobol oo ka tirsan Soomaaliya, oo kala ahaayeen goboladii waqooyi iyo kuwii koonfureed. shantii Soomaaliyeed waxaa xorriyad buuxda heshay 2 ka mid ah, halka 3 kalena ay dhinaayeen, oo kala ah Djibouti, Soomaali galbeed iyo NFD. midowga gobolada waqooyi iyo gobolada koonfureed ee Soomaaliya waxaa qayb weyn ka qaatay dad fara badan oo ay ku jireen ururkii SYL, waxaana hormuud u ahaa Cabdinaasir Saqaawadiin iyo Maxamed Xirsi Nuur Siidi. ururka SYL waxaa la aasaasay sanadii 1943 waxaana lagu aasaasay magaalada Muqdisho. hadafkooduna wuxuu ahaa in waddanka xornimo buuxda uu helo. taasina waxay timid 17 sano kadib aasaaskii ururkii SYL.
markaasoo la arkay calan Soomaaliyeed oo babanaya carro Soomaaliyeed, waxayna ahayd maalin taariikhi ah 12 Abriil sanadii 1943. magacyada geesiyaashii ururkii SYL: 1. Cabdiqaadir Saqaawaddiin. 2. Cusmaan Geedi Raage. 3. Cali Xasan Maxamuud. 4. Daahir Xirsi Cusmaan. 5. Dheere Xaaji Dheere. 6. Maxamed Xirsi Nuur. 7. Maxamed Cali Nuur. 8. Maxamed Faarax Hilowle. 9. Maxamed Cusmaan Baarbe. 10. Xaaji Maxamed Xuseen. 11. Xaaji Maxamed Cabdulaahi. 12. Huudow Macalin Cabdulle Jaamac. 13. Yaasiin Xaaji Cismaan. kuwaa waxay ahaayeen 13 dhalinyaro ee u istaagtay gobonimo doonka iyo xorriyad raadinta Soomaaliya ee la magac baxay ururkii SYL. nasiib wanaag 17 sano kadib waxaa xorriyadda qaatay gobolladii Jabuuti sanadii 1977 oo isu taagay inay yihiin waddanka madax bannaan Soomaaliya. xilligaasi Jabuuti waxa uu noqday waddanka madax bannaan Soomaaliya 1977, halka gobolladii NFD iyo weliba Soomaali Galbeed ay weli ku biirsan yihiin meelihii lagu biiriyay sanadii 1884. xilligii xorriyadda dalka, markii Soomaalidu xorriyaddoodii heleen, waxaa isku biiray gobollada waqooyi iyo gobollada koonfureed. kadib waxa ay si wadajir ah u doorteen madaxweynihii ugu horreeyay ee Soomaaliya, waxa uuna ahaa Aadan Cabdulle Cusmaan, kaasi oo xilka hayay muddo ku dhow 1 sano. kadib Aadan Cadde waxa uu keenay xilkii madaxweynenimo, waxa uuna u sheegay golihii ummadda inuu xilkii iska wareejinayo. Aadan Cadde waxa uu ahaa madaxweynihii ugu horreeyay ee xilka u wareejiyo si iskiisa ah, waxaana wakhtiga Soomaaliya ra'iisul wasaare ka ahaa Cabdirasaaq Xaaji Xuseen. madaxweynihii labaad ee la doortay xil wareejinta kadib waxa uu ahaa Cabdirashiid Cali Sharma Arke. kadib waxaa waddanka qabsaday gacaankii militariga, waxa uuna dalka ku qabsaday afgembi, waxaana horjoogo u ahaa Jaale Maxamed Siyaad Barre, kaasi oo dalka xukumayay muddo ku dhow 21 sano. markaan wada ku saaxiibnay barnaamijkii baradalkaaga hooyo ee maantay halkaa haynoogu ekaado barnaamijkan sidaas iyo amaan Allah.